السلام عليكم أصحابي. maanta waxaan sameyneynaa haddii alla idmo muufadaas oo aan ku dari doono hilib shiidan iyo ukun iyo subag iyo sokor iyo insha Allah khamiir iyo bur iyo boorash. intaasaa laga sameynayaa haddii Ilaahay idmo. runtii cuntadan waxaa loogu talagalay ama macnaha dee fikirkeeda igu dhalato kale ilmaha ma aragtay autism ka qaba, waalidka ilmaha autism ka qaba haysta oo ma aragtay ciyalkaas qayb kamid ah waxaa jirta ma aragtay inay diidaan cuntooyinka caadiga inay cunaan oo cunto qalqalan bas ee cunaan, rooti qalalan, ciish qalalan oo nafaqo lahayn. marka in cunugi ma aragtay wixii loo farsameeyo oo wax kale oo nafaqo leh loogu daro si ma aragtay jirkiisa ay u caawiso oo soo kabto marka cuntooyinka kala dhanna aysan cunin ay jirto. marka insha Allah hadda hilibkii waxaan ku shubanaynaa digsiga, biyaha ku darsanaynaa. marka maxay ahaydeen dabka saari doonaa insha Allah, biyaha ku qasqaseynaa si ma aragtay uu kala baxbaxo. marka hilibkii hadda uu soo karsamay, markuu soo karsamay ka bacdina khamiira ku darsaday, baaquliga ku soo shubtay biyihii iyo qandaca ama kulul, subaga ku daray, waxaa ku darsanayaa ukun, 2 xabo ukuna. marka insha Allah sokor yar ku daray iyo cusbo yar. waa iska cabiran kartaa adiga wixii aad rabtid ma aragtay. muhiimadu kale waxa waaye in hilib lagu dubi karo muufo ama rooti ama yani in wax lagu dubi karo in ma aragtay in laga barto. laakiin waxa sameysanaysid waa adiga waa garan kartaa. boorashkana waa kana. marka insha Allah waa isku qaseena intaan si fiican iskugu dhex galaan. runtii wallahi cunto nafaqo ah waaye. ilmahaas aan sheegayo kale waa ilmo wax qalalan oo la dubay bis cunaan. marka in loogu dhex qariyo ma aragtay hilibka iyo ukunta iyo subaga iyo waxaas yani nafaqay noqonaysaa insha Allah. wayna ka helayaan mana dareemayaan ma aragtay inuu hilib ku jiro dhan ma la dareemayo. marka waa kana hadda si fiican oo qasa isku dhex galiyo, qasa qaandadana ku xashaya ku walaaqaya. marka insha Allah meel inaan dhigano waaye oo nus saac camal ee noo taasho ee ma aragtay khamiirto ka bacdina sida muufada loo dubi jiray caadi u dubno insha Allah. marka waa kana way noo soo khamiirtay, waa isku soo noqonay. birtii aan soo qaatay marka xabadii u horeysa aan ku shubay. waa arki doontiin, waa daawanaysaan sida ma aragtay aan u dubayo. dhowr xabaa dubi doona insha Allah. aan macna video ka duubi doona, baaquliga dhan lagama duubi karo waqtiga badanaa. ani video dheer ma jecli. hooyooyinka ilmaha ma aragtay dhibaatadaas la nool oo kale qaba, dadka kale kuley ma fahmi karaan laakiin way iska sameysan karaan. qof kasta uu sameysan karaa. aaday u dhadhan macaan tahay, ma laga sheekeyn karo. yani wax aad u macaan waaye. waa inaa gacantaada ma aragtay markaa birta burka ku dubaysid gacantaada biyo marisaa si uu ma aragtay kaaga haro burka uu ku soo raacin, cajiinka uu ku soo raacin oo birta ugu fariisto. marka waxba lagu daraayo saliid iyo waxba toona, waa la gedinaa leh because asaga subag ku jiray ma aragtay. lagama sheekeyn karo muufadan. tijaabiya dadka u baahan oo baahida gaarka ah qabo aan sheegayo yani way ka faa'iideysan karaan haday arkaan videogan. laakiin dadka kale caadiga ah xataa yani waa aad cunto u dhadhan macaan waaye. dhadhankeeda macaan waaye. waana nafaqo. qofka xataa ma u baahna maraq iyo wax inuu ku cuno because hilibkiiba ku jiraba. fahamtay. insha Allah waxaa soo sameyn doonaa rooti hilib ku jiro, rooti caadi, rooti Soomaaliga la dubto oo hilibka aan ku daray iyo mataqaanaa ciishka la fidinayo oo caadiga sida sabaayado kale ah oo ayadana hilib ku jiro aan soo sameynaa insha Allah. insha Allah haddaa aragtiin commentiga kusoo qora. dadka ma aragtay hadday daawadaan oo kale hooyooyin baahiyo gaar qaba oo fikirkan oo kale u baahan ama ay tijaabiyeen ii soo sheega please. ma aragtay commentiga igu soo qora
waayo ani hooyooyinkaasaan ka mid ahay. Hooyooyinka caruurta autism-ka haysta way u baahan yihiin fikrado badan oo ku saabsan ilmaha sida wax loo siin karo ama ay wax u cuni karaan iyo nafaqeyntooda labadaba. Marka wax kasta in la wadaago way fiican tahay. Qofka waxa taqaanin uu kaa baranaya, uu kaa baran karaa waxa adiga u yaqaanana oo aad aqoonna waa ka baran kartaa. Marka walaalayaal insha Allah hala kala faa'iideysto. Maasha Allah fursada haysanaa meel wax kasta lagu soo bandhigi karo oo waxaa haysanaa wax kasta aad ka heli karto ka kororsan kartid YouTube-ka. Marka insha Allah fursadaha ka faa'iideysanaan leeyahay. Maasha Allah hadda waxa waaye xabadana u dambeysa umaleynaya tana idin tusi doono. Maasha Allah kana si qurux badan u ekaanaya markii soo gududato. waa kana saani ku soo baxday. Waa wax aad u jilicsan, macaan, ilmaha ay ka helayaan, iska googoosan karaan, iska ruugi karaan, wax qalqalan la jecel yihiin ilmahaas aan sheegayo inay cunaan. Marka hooyooyinku waa ku dhiirigelinayaa inay tijaabiyaan.